on Ikram Tahlil's disappearance, which رئيس وزراء الصومالية إنجنير محمد حسين روبلي ومانتا كلن خاصة لقاتي ku-xigeenka qaramada midoobay haweenada lagu magacaabo Aamina Maxamed iyo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan James Swan iyo waliba maamul goboleedyada ayaa waxa uu shaaca ka qaaday maanta in uusan kiiska Ikraan ka gali doonin waa hadal sida uu sheegay waxa uu sheegay inuu ku dadaalayo sidii ay Ikraan u heli lahayd cadaalad waa sida uu sheegay rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble intaasi waxa uu ku daray injineer Maxamed Xuseen Roble in ay ku dadaalayaan si Ikraan cadaalad u heli lahayd oo wada kasta ay u mari lahaayeen sida uu sheegay rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble qaramada midoobay iyo beesha caalamka midowga Afrika iyo waliba dawladaha caalamka waxaan u sheeganaa buu yiri in aanu ku dadaalano sidii Ikraan cadaalad u heli lahayd qof kasta oo Soomaaliya waxa uu rabaa cadaalad iyo waliba sinaan sidoo uu helo ayuu rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble intaas waxa uu ku daray inay socoto doorashadii Soomaaliya oo uu sheegay inay hadda meel gabagaba marayso aqalkii sare waxa uu intaas ku daray rasuulaha Soomaaliya in wiigan soo socda la dooran doono gobolada waqooyi xildhibaanadii matalayay aqalka sare halka barina ay bilaaban doonto buu yiri doorashadii aqalka sare ee maamul goboleedka Hirshabelle ku matalaya federaalka wasida uu sheegay rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble waxa uu qaramada midoobay uga mahad celiyay dadaalka iyo waliba garab istaagga ay la wadaan dadka Soomaaliyeed intaasi waxa uu ku daray rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble in ay ku dadaalayaan si dalka amaankiisa iyo doorashada loo qaban lahaa buu yiri oo waliba doorasho cadaaladana ay uga dhici lahayd dalka buu yiri rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble oo maanta la kulmay ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed iyo waliba wakiilka gaarka ah ee u qaabilsan Soomaaliya qaramada midoobay James Swan intaasi waxa uu ku daray in rasuulaha Soomaaliya ay ku dadaalayaan in doorashadu waqtigeedii ay ku dhacdo si cadaalad iyo daahfurnaan ay ku dhacdo buu yiri rasuulaha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble oo la hadlayay tan iyo markii rasuulaha Soomaaliya lagu wareejiyay doorashada iyo waliba ammaanka guud ee dalka waxa uu soo dhaweeyay dadkii fakarka duwanaa waliba mucaaradka iyo xukuumadda isaga oo sheegay in dawladda Soomaaliya hadda ay ku dadaalayso sidii doorashada xilligeeda ay ku dhici lahayd doorasho cadaalad ay qaban lahayd UN and the members of the international community for the firm decision in demanding credible investigation.